cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo jadwalka kaaga muuqdo hortaada oo loo yaqaano income and expense tracking system, nidaamka la socodka dhaqdhaqaaqa dakhliga ku soo gala qarashaadka ka baxa si aad hadhow u ogaato in ay wax faa'iido ku soo hareen bishii iyo inaad khasaare gashay oo aad jeebkaada hoos u qoday oo aad isticmaashay keed hore ku yaalay inta dhameysay dhammaan wixii dakhliga ku soo galay. marka sida hadda uu yahay markaad eegto halka wuxuu inaga tusinayaa wixii dakhli ahaa oo idiloona soo gala bisha. halkan wuxuu naga tusinayaa wixii qarashaad ahaa oo naga baxay dhammaan bishan. halkan wuxuu naga tusinayaa wixii faa'iido ah ama baaqi inoo soo haray markii qarashaadkan aan ka jarnay dakhligiina soo galay. halkan wuxuu naga tusinayaa loss ama khasaaraha waa haddii qarashaadkeena ay ka bataan dakhligiina soo galay bisha. halkan dakhliga wuxuu inaga tusinayaa 85,000 wixii qarashaadahana halkaas oo naga tusinaa 54,900 faa'iidadiina $30,100 khasaarana maba jiraba. marka haddii halkan aan marka xogtii aan ku qoro oo dhinacan aad arkaysa laba qayb waaye, qaybtan expense ku qoran, qaybtanna income ku qoran. marka wixii dakhliga halkan aan ku qorayaa, wixii qarashaad halkan aan ku qorayaa. taariikhda oo maanta ah 16 bisha saddexaad waxaan qaatay aan dhaqo bishii labaad oo dhamaatay darteeda aan dhaqo guriye 3 guri oo aan lahaa ayaa waxa mataqaanaa iga soo gashay. tusaale kiradii baa la siiyay aan dhaqo hal guri buu ahaa, kiradiisa waxay ahayd 7,500. soo halka waxaan ku qorayaa house rent, kadibna waxaan leeyahay 750 7,500 7,500 markaan inta aan dhaho oo keyboardkayga inta aan dhaho waxaa la rabaa inuu geeyo halkaas income-ka inuu geeyo ilaan waa income qaybta income-kan ku qoray. halkana waa inuu siyaadiyo profitkii uu siyaadiyo. marka eeg hadda inta markaan dhaho eeg waa ka oo isbedelay wixii total income ahaa 92,000 noqday 500 profitkana wuu isbedelay, faa'iidada wuu isbedeshay. sidoo kale haddii aan dhaho isla bishan oo maxay ahayd 18 ayaa waxaan soo gaday telefoon iPhone 15 aan soo gaday. waxaan halkaa ku qorayaa iPhone 15 oo 1,500 iska dheh. then okay markaan dhaho eeg waa inuu halkaa geeyo ayadana. waa ka halkan u geynaya. halkaa isla markuu u geeyo maadaama ay siyaada noqotay wax ku darsamay qarashaadkii, tanna hoos u dhacaysaa, kanna mataqaana waxba iska bedelayo. waa ka marka qaabkan ayaa u shaqaynaysaa wixii dakhliga ku soo galay iyo qarashaad qaabkan mataqaana ay kugu maamulaysaa. marka dhaqdhaqaaqaaga si caydad ayaad ula soconaysaa. marka ila soco jadwalkan ayaan sameynaynaa.